isbitaalka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ku guuleystay qalliinka Salmaan Ciise Xuseen oo ay de'diisu ahayd 1 sano iyo bar xanuunkiisana dalka wax looga qaban waayay. Wiilkan oo la ildarnaa xanuun dhinaca xididada saxrada qaado ah isbitaallo badan oo ku yaala dalka ayaa la geeyay, laakiin waxay sheegeen inaysan waxba ka qaban karin sida uu sheegayo Aabba Ciise Xuseen oo ah aabbaha wiilka dhalay. Waxa la geeyay xamar sigoo waqtigaas jiro maaragtay 3 habeen dhalan xamar baa la geeyay. Xamar markii la geeyay tar badan la geeyay oo maaragtay hadda adiga 4 camal waxa la geeyay isbitaal. waxa la cunugan ugu dambeystii markii wixii aan anaga gacantayda ku jiro ay ka baxaan adiga 2 sano. Aabbaha dhalay wiilka bukaanka ah ayaa waxa uu sheegay in goobihii caafimaad ee uu geeyay ay kula taliyeen in loo qaado waddanka Hindiya, taasina uusan awoodin ka dhaqaale ahaan. Lacagtaas Hindiya cunug loogu qaadaa lacag hela ma ahan, maaragtay wixii gacantayda ku jiro waa ka baxaan. xaalad Ilaahay baa garana waa cunugan Maxaasan u qaaday. Dr. Maxamed Cabdullaahi la yiraahdo wada jir jooga markaas igula taliyay in cunugan maaragtay Maxaas loo qaado. Maxaas loo qaado u dhahay marka anigana waa ka aqbalay. Isbitaalka ma jirto hay'ad gacanta ku haysa ama dawlad dhaqaale ku bixisa, balse jaaliyadda deegaanka ka soo jeeda ayaa dhaqaale iska soo ururiyeen ku daboola adeegyada uu bixiyo isbitaalku. Aabba Ciise ayaa ku ammaanay jaaliyaddan ka warqabka duruufaha deegaanada ay ka soo jeedaan. balan dadkii horta isbitaalkaas dhisay oo dadkan maaragtay xanuunsana oo walaalahooda ku deeqay ayaa horta mahadda koobaad aan maaragtay Ilaahay ka soko u jiidinaya. Mid xigta waxay tahay Dr. Maxamed iyo maaragtay dadka la shaqeeyaba ayagana maaragtay mahad aad baan ugu jiidinaya oo aad iyo aad baan ugu duceynaya. Agaasimaha isbitaalka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Dr. Maxamed Xuseen Cabdulle oo ah dhakhtarka qalliinka sameeyay ayaa waxa uu sheegay in qalliinkan uu ahaa kii ugu adkaa ee soo mara ebeda. qalliin ka mid ah qalliinadii isbitaalka lagu galay oo taariikhi aan isleenahay inuu yahay waa qalliin magaciisa afka qalaad markii lagu sheegay leeraado Hirschenberg disease ama magaca mustalaxa caadiga loo yaqaan waxa la yiraahdaa megacolon. qalliinkaasi wuxuu ka mid yahay qalliinada dunida markii la fiiriyo dhif inaadirka ku ah oo la yiraahdo 1 in 5000 ayaa loo yaqaanaa taa markii la sheegayo 1 in 5000 yani 5000 ee cunug ee dhalata waxa lagu arkaa hal cunug kamid ah. qalliin nuuciisu dhif iyo naadir ka yahay dunida. haddaba sidee ayuu ugu dhiiraday Dr. Maxamed? Aabbaha wuxuu iska ahaa dadka iska aad u tabar daran ma suuragali karin Hindiya iyo wax lamid in case u qaadaan. waxaan si degdeg ah ku go'aansanay in aan isku dayn horta evacuation aan sameeyno oo calooshiisa empty ah ka dhigno faarujino. waxaan isticmaalay daawooyinka laxativeska ama kuwa saxarada jilciyo, laakiin way suuragali weysay oo cunugii xaaladiisa way ka sii adkaatay oo Disney ayuu nagu sii galay ama naqaskii caloosha dibirkeeda aad weynaato qof kasta oo sawirkeeda arki karaa. waxaan ku qasbanaan in qalliin degdeg ah gelino oo emergency stage uu noqdo xaaladiisa. kadibna waxaan sameeynay laparotomia waxa loo yaqaano afka qalaad, laakiin caloosha ayaan furnay qaybta kore. waxaan isku dayn horta inaan marka hore evacuation ku soo sameeyno oo intestine-ka ka soo bixino dhammaan wixii aayar ku xiran, ka soo bixino dhammaan wixii fecal infection ah saxarada ku xayirneed. alxamdulillah case-kii marka intaas ku guuleysana waa soo xirnay. qalliinka la sameeyo ee u baahnaa cunugaas ayaa wuxuu ahaa qalliin la yiraahdo pull through operation. aslan waa intestine-ka oo laga soo jiidayo rectum-ka in case-ka inta la seexiyo proposition loo dhigo. waxa hadda ku soo xirnay qaybta sigmoidka ka koreysay ee ka bilaabanaysa descending colon mandhicirka qaybta saxarada soo qaado. caafimaadka waxa loo kala qaadaa wuxuu horta ka soo bilowdaa qaybtaas qayb la yiraahdo ileocecal junction. mandhicirka yaryar iyo mandhicirka weyn halka ay ku kulmaan waa halka ka sameysmo geedka la yiraahdo qabsanka kala laadmo. waxa meeshaas anatomy ka bilaabana marka large intestine ama mandhicirada waaweyn. waxa afka Soomaali lagu yiraahdo mandhicirada waaweyn. mandhicirkaas weyn wuxuu ka bilowdaa marka waxa loo koraa kor ascending, kadib wuxuu noqdaa dadab oo transfer, kadib wuxuu noqdaa descending, angle soo sameysma qaloocaas waxa loo yaqaanaa sigmoid, kadib rectum anusku ka baxa. cunuga marka waxa nervihiisa dhameystirmi waayay abuurkiisa markuu socday qaybta sigmoidka iyo qaybta rectumka. Dr. Maxamed waxa uu sheegay haddii ay noqon lahayd in loo qaado waddanka Hindiya wiilkan
in ay ku bixi lahayd lacag fara badan balse iminka qaleenka loogu sameeyey si bilaash ah. dhaqaalihii keyska uga bixi lahaa wadanka dad banaankiisa hadii la dhihi lahaa waxaa loogu qiyaasay lacag rafli 12,000 ka badan dollar. laakiin kaanaga ahaan isbitaalka maadaama waxa hadda support gareeyay hay'adaha aysan jirin laakiin ay support gareeyaan dad deegaanka u dhashay iyo dad jaaliyada fanki ay bixiyaan waxaan ku guuleysanay in keyskii qaab free charge amal ah loogu sameeyo oo laga qaado kaliya surface-kii iyo adeegii iyo shaqaalihii wax isbitaalka ku socon lahaa. Dr. Maxamed ayaa ugu dambeyntii waxa uu bogaadiyay jaaliyada bixisa fanka isbitaalka waxana uu xusay in dadka deegaanku ay caafimaad u aadi jireen deegaano fogfoga. isbitaalka haddii aan ka hadalno fikir ahaan waxaa ka dambeeyay khayr Allah siiyo dadka deegaanka u dhashay ee jaaliyada Soomaaliyeed ee deegaankaas u dhashay oo markay tageen dibadaha u suurageliyay inay u fikiraan dadkii ilaan deegaankay ka soo tageen magaalada u dhow waa Beledweyne waxayna u jirtaa 140 kilomitir waa bacaad waa dhagax way fikireen waxay ku fikireen see dadkaas loo safe gareyn karaa haddii bishii 2 keys 3 keys u dhimato hooyo umul raacday dhiig baxda qabsada darteed la waayay cid xaliso waxa lagu fikiray waxay ku fikireen see lagu xalin karaa waxay ku fikireen istaalkii u helaan cid dhista waxaa la helay hay'ad leeyahay tamkiin oo istaalka dhismihiisa suuragelisay dhul 100 mitir oo square ayuu ku fadhiyaa istaalka balciisa dhererkiisa markii intaas la helay waxay suurageliyeen in fankii hadana diyaariyaan dhaqaatiirtii isbitaalkii la keeno oo anaga ilaahay sabab nooga dhiga maanta inaan ka shaqeyno isbitaalkii oo aan ka mid nahay dadkii ay dadaalkoodii ku keeneen. Muuse Moomin Hagara, Muuse Caanagel, Telefishinka STN, Beledweyne.